reer Dhuusamareeb subaxnimadan way uga bedeleen 24 saac ee la soo dhaaf waxa ay ku soo waabariisteen raxmadda Alle oo xalay habeenimo ku shubay magaalada gudaheeda roobkan ayaa ahay mid lagu diirsaday isagoona biyo dhigay miyiga ka baxsan magaalada iyo wadooyinka magaalada Dhuusamareeb mudooyinkii ugu dambeeyay waxa ka jiray dalka Soomaaliya abaar baahsan oo saameeyay dalka iyo dunyadaba waa kuwan shacabka reer Dhuusamareeb oo la hadlay TV-ga Goobjoog راديو جوجو وتلفزيون كليه راديو كليه ولا dhageysto bulshada dhageysto dhaxdhaxaadka oo rusheega marka labaad waxa xal Ilaahayna siiyay barwaaqo roobna siiyay waxaan kala cabasho ka nahay oo maamulka degmada iyo maamulka galmudug oo madaxa xukuumadda hogaaminayo iyo wasiirka arrimaha gudaha waxaan inay wax ka qabtaan 2 saacadood ay u qaadatay gurigeyga laamiga inay imaado waxaan 10 mitir dhameeyeen isku jira laamiga u jira marka waxaan booyada iyo wax inta la keeno in laga dhuuqo oo dadka bulshada loo furaan codso lahayn marka biyo saa'ida ayaa ka socda magaalada dhex yaala biyo aad iyo aad u tiro badan oo maxay ahayd buundooyinka aan saa'id uga gudbaynin oo qashinka iyo magaalada dhibaatada yaala ay ugu badan tahay waxaan ka codsanaynaa khaasatan gobolka galmudug dadka jooga inay horta marka hore awal ayagu dadaalaan marka xigta in maxay ahayd dadka u dhashay magaalada ay aad iyo aad u habeystaan oo magaalooyinka buundooyinka u furaan magaaladeena alxamdulillaah xamdan kasiiran way roobsatay way degtay way barwaaqowday laakiin mashaakil waxa ku haya biyihii oo fariistay iridihii ay ka bixi jireen oo la xiray iyo maamul hadda u diyaarsan oo inuu wax ka qabta uusan jirinin sidaa darteed waxaan shacab weynaha magaalada Dhuusamareeb dhalinyarada hooyooyinka maamulka dhammaan waxaan ku boorinayaa in wax laga qabto biyahaas oo nadaafadda aad u dhibaataynaya sidaa darteed waxaan mar kale ku bogaadinayaa ummad weynaha joogta magaalada Dhuusamareeb inay wax ka qabato waxaan ku suganahay magaalada Dhuusamareeb 24 saac la soo dhaafay magaalku waa ay roobsatay qabow waa la qaboobay alxamdulillaah laakiin sidaa wada aragtaan magaalkii meel kasta biyo ayaa xaray laamiyadii goobihii la isugu imaan jiray waa nimco Ilaahay laakiin waxaan ka codsanayaa dawladda federaalka iyo dhammaan maamulka degmada iyo galmudugta cusub hadeertan la rajeynayo inay timaado ama musharaxiinta waxaan ugu baaqi lahaa hadeertan sharaxan inay ka qayb qaataan qaabka mataqaanaa bilacda magaalka dib loogu soo celin lahaa oo haddaba saadaasha hawada ayaa tilmaamaysa in haddii Ilaahay uu raali ka noqdo ay ka da'ayaan roobab aad u fara badan guud ahaan dalka Soomaaliya maxamed macalin axmed maxamed qadar warbaahinta Goobjoog Dhuusamareeb